السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مeel walba aad joogtaan ku soo dhawaada YouTube channelkayga Asad Daro Channel. Waxaan maanta inoo soo diyaarinay waano geerida ayaa inoogu filan. Marka u horeysa waxaan dadka ugu dardaarmaynaa cabsida Alle sida Allah uu Quraanka Kariimka ah inoogu sheegay. Dad yahow mu'miniinta ahi haddaad Eebe ka cabsataan oo ka dhowrsataan wuxuu idin yeelayaa faraj nabadgelyo wuxuuna asturi doonaa dembiyadiina. Sida aynu wada ogsoonnahay Eebe nooma abuurin dheeldheel wax walbana waa naloo kala cadeeyay. Ajasha ama muddada qofka loo qabtay waa wax kooban. qof walbana maalin ayuu dhimanayaa laakiin yidiilada iyo waxyaalaha qofka had iyo jeer ku fikira waa mid aan dhamaanaynin. waxaana maalin walba aragnaa qof dhintay ama meyd la sii wado. ma ku fikirtay marna xilliga aad adigu dhimanaysid? dadka ahlu cilmiga ahi aqoon-yahanada diinta waxay yiraahdaan marka ay ka hadlayeen dadka geerida iyo Eebe ilaaway. dadka geerida ilaaway wax kasta oo ay ururshaan ma dhergaan mana gaaraan waxa ay ku fikirayaan yidiilada adduun aan wax taraynin ayay ururiyaan. meel aysan degaynin way dhisaan adduunyo aanay gaaraynin way ku fikiraan siduu Eebe Quraankiisa ugu yiri iska dhaafaa cuneen oo ha raaxaysteen. waxa mashquuliyay yidiilada ay ku jiraan goor dambe ayay ogaan doonaan. ka waran haddaan u raaxaysano sanado ka bacdina oo u yimaado wixii aan u yaboohnay geerida iyo cadaabka maalkii ay ku raaxaysanayeenna waxba u tari maayo maalinta. qof kasta oo muslim ahi waxaa laga rabaa inuu had iyo jeer xasuusnaado dardaarankii nabigeena nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. waxa uu yidhi waxaad had iyo jeer xasuustiisa badisaan kan macaanka iyo raaxada gooya oo ah geerida. waa hadal kooban oo aad ka fahmi karto waxyaalo aad u tiro badan kuna xasuusinaya meeshii aad maanta joogto iyo waxa ka dambeeya in aad had iyo goor sahay u qaadato meesha aad bari tagi doonto. sheekh culimada muslimiinta ka mid ah ayaa wuxuu dhahay ilaahay ayaan ku dhaartay qof kasta oo nool oo inaga naga mid ahi wuu dhimanayaa ka bacdina wuu baaliyoobayaa dhammaanayaa jirkiisa kadibna dhulka ayaa cuni jirkeena iyo dhiiggeena sidii aan horay dhulka wixii ka soo baxay u cuni jirnay. kadibna waxaa imaanaya Eebe hadalkiisu ahaa marka suurka ama buunka la afuufo waxaa suuxi doona ama dhiman doona cid kasta oo joogta dhulka iyo samada ilaa cidii Eebe doona mooye. kadibna mar kale ayaa la afuufi doonaa waxaa la arki dadkii iyagoo wada taagan oo qabriga ka soo baxaya. maalin maalmaha ka mid ah ayaa nabiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu soo aaday dhinaca qabuuraha si uu ugu qayb galo qof la aasay. afkiisa ayuu nabiga fariistay wuxuu bilaabay inuu ooyay ilmadii nabiga sallallahu calayhi wasallam ka soo baxday ilaa ay qoysay cidii saarnayd qabriga daantiisa. saxaabadii nabiga waxay bilaabeen inay aamusaan iyagoo la yaaban oohinta nabiga oo hore loogu dhaafay dembigiisa. wax yar ka bacdi ayaa nabiga isaga oo ooyaya wuxuu dib nabiga oo ooynaya ayaa saxaabada wuxuu ku yiri walaalahaygiyo tan oo kale u diyaar garooba waxay soo maraysaa qof kasta oo idinka mid ahi. nin ayaa nabiga wuxuu weydiiyey qofka dadka u caqliga badan. wuxuu nabigu ku yiri dad had iyo goor xasuusta geerida oo had iyo jeerna u diyaar garooba kuwaas ayaa ah kuwa dadka u caqliga badan waxayna la tageen sharaftii adduunyada iyo karaamadii aakhiro. sidaan wada ognahay dadka maanta qabuuraha ku jira waxaa laga yaabaa inay ahaayeen dadka adduunka u raaxada badan una waqtiga dheeraa ama dadka ugu sharafta badnaa. maantana waxaa guryo u noqday qabuuraha waxaa wehel u ah mugdiga darisna waxaa u ah lafaha dadka hore oo geeriyooday. maalkoodii waxaa la qaybsaday waxaa dhab u ku noqotay Eebe hadalkiisu ahaa ma waxaad moodeen inaan idinka abuurnay dheeldheel oo marnaba xaggayga aydan u soo noqonaynin. barnaamijkani wuxuu inoo ahaan doonaa taxane